السلام عليكم كسو dhawaada nuursa kuuki maanta waxaa idin wadaa cabitaan diinsi ah. Diinsiga waa caafimaad waana qalajiye laakiin wuu qaraar yahay. Halkan waxaa ku haysanaa diinsi yar, sokor iyo biyo iyo caano budo ah oo caano booro ah iyo viimto. Intaas isku dari doonaa haduu Ilaahay karaal noqdo. Marka waxaan diyaarinaynaa weelkaan ku shubi lahayn. Waxaan ugu horeyn ku bilaabaa diinsiga in la qaso loo baahan yahay diinsiga. Markaan diinsiga ku shubto waxaan kaloo ku dari doonaa waxyaabaha meesha yaalo sida caanaha iyo sokorta iyo biyaha. Marka waxaa lagaaga baahan yahay inaad si fiican isugu qasto. Waxaan ku daraa caano budo ah. Hadana waxaan ku daraa sokor. Sokorta waxay ka caawinaysaa inuu diinsiga macaan ku noqdo sababtoo ah diinsigu wuu qaraar yahay. Muhiimadan cabitaanka loo sameynayo waxay tahay in diinsiga qaraarkiisa isaga baabi'iso. Waxaa ku daraysaa biyo yar. Biyo kulul ma aha, biyo qabowna ma aha, waa biyo caadi ah oo dhexdhexaad ah. Si fiican isugu qasaysaa caanaha iyo sokorta iyo diinsiga. Marka si fiican isugu qasto waa aragtaa caanaha midabkiisa inuu isbedelay. Biyo intii harsanaa aan ku shubay. Hadana waxaan soo qaadanaa weelkii aan ku shubi lahaa diinsiga. Waan diyaarsanaa. Hadaa rabtid asigoo caadi waa ku cabi kartaa laakiin ani baraf aan ku darsanaa diinsiga. Barafka markaa ku shubo kadib waxaa soo qaadanaa viimtada. Wax yar oo viimta ah ku shubanaa. Viimtada dhadhan yar ka rabaa ma karibi wax badan. Hadaa rabtid waa iska dhaafi kartaa. Hadaa jeceshahayna viimta waa ku darsan kartaa. Laakiin muhiimada waa caanaha iyo sokorta inaad ku darsatid. Saan markaa u diyaarsatid. Hadana waxaan soo qaadanaynaa caanihii hadaale aan qasnay. Caanaha hadana si fiican u sii qasaa isku sii dhex gelinaa. Waxaan rabaa inaan miiro. Marka intaan miirin ka hor aan si fiican isugu sii qasaa diinsiga iyo caanaha. Aragtaas isugu milmay kulli.
marka intaas yar yarka qashinkaana waa iska miira hadii kala afku ka galgalaa kadib ma jeclaysanaysa cabitaanka inaa cabtid haduu diinsiga afka ka galo laakiin dheecaankiisa ku haray muhiimadana intaas waaye dheecaanka diinsiga inuu ku haro aragta fiintada hoos ku jira kafeega hoos fadhiyo waa fiintadii sida cabitaan aad u macaan oo ku soo baxay markaa cabis ma u maleynaysan diinsi inuu yahay ilmaha oo kale uu fiican yahay iyo dadka qaraarka dhibaayo oo necbeysanay inay qaraarka cabaan ilmahana aad ugu fiican yahay in caanaha iyo fiintada loogu daro diinsiga sababtoo ah ma necbeysanayaan mar waliba u sahlanaanaysa inay cabaan diinsiga maasha Allah dhadhankiisa aad u macaan markaan dhadhamiyay